ka socda telefishinka codka bariga Afrika shalay talo xalan saxiyay 6 xubnood oo kamid ah komishanka cusub ee doorashooyinka xisbiga wadani iyo xisbiga cudbo way qaadaceen ma laga yaabaa xukuumaddu tallaabo kasta oo qaadayso inay ku adkaysanayso in ay meel mariso go'aankeeda bulshadii aad ka tirsanayd isla markaasna ku taageerto waxay sugaysaa go'aanka aad ka qaadan doontaan taladaasi sidoo kale ma laga yaabaa inaad u qaadato sidii doorashooyinkii madaxweynaha xubnihii 9 ah 7 aad qaadateen iyo sidoo kale talaabadan shalay dhacday inaad sidii kuwii kale aad u qaadataan maadaama xukuumaddu idinkaga adkaatay tallaabooyinkaasi xukuumaddu waxba kuma adkaan horta waxay qaadatay in la garanaynba waa ka jawaabay xisbigu si aan ka noqosho lahayn ayuu u go'aamiyey inaanu kana mid noqon lana shaqayn waxaan idiin sheegayaana go'aankaasi waa go'aanka madambaysa xisbigu qaatay magacayga Luqmaan Maxamed waxa ka socda telefishinka bulsho sidoo kale go'aanka xisbigu qaatay waa kama dambaysa inaanu lana shaqaynin kana mid noqonin gudoomiye magacayga Luqmaan Maxamed ka socda telefishinka bulsho adigu hor waxaad gudoomiye aqalka baarlamaanka Soomaaliland bal shacbiga Soomaaliland ku dhageysanaya uu sheeg sharciga ku fasaxayo xubinaad gudbisay inaad dib loo soo noqoto sidoo kale xisbiga kulmiye wuxuu sheegay inuu doorashada qabanay 6 xubnood u qabanayso ma ka qayb galaysaa doorashada 6 xubnood qabanaya wada sharciga ii diidayana la soo noqdaa ay sheegi doona hadaad garanayso hadaad ugu garanayso ii sheeg sharciga ii diidayana xubinta la soo laakiin adaa ku weydiiyay haduu jiro gudoomiye أنا كويدي. لبا حسبي كلمية لما حسبي كم بقى هدول لي دورشان قمنايا مقعنا كبدلو دموس اللي أنا هو بحيه مركز. gudoomiye magacaygu wax sakiin telefishinka dalka TV ma ka socda marar badan oo intii labadii sano ah xisbiga mucaaradka ee wadani kalsoonida komishankana waa kala noqonayay waxa weeye shirna waa ku dhawaaqay xasaahatee wax habeeratee oo tallaabo oo hore u qaadeen ma jirto hadda waxa leedihiin waa talidgaga adkaaday cad ahayn golihii wakiiladana aad leedihiin waa la aftoobay marka imika shirkaaga laga dareero maxaa tallaabo la qaadi doonaa ma mudaharaad baa dalka ka dhici doona maxaa doonaysaa inaad qabataan horta tallaabo kastoo sharcigu ogol yahay dastuurku wuxuu ogol yahay mudaharaad salmiga ogol yahay rayga dadku waxay ku dhiiban karaan qoraal waxay ku dhiiban karaan hadal waxay ku dhiiban karaan shirar intaba waa noo banaanta xisbiga inuu qaado gudoomiye magacaygu waa Idris Bershiya waxa ka socda telefishinka Universal sida in hadalkaaga ka dhawaajisay waxa tiri labada xisbi kuma wada jiraan gudida komishanka ee shalay tole ay saxiyeen golaha wakiilada sida muuqatana xubnihii ay soo xusheen xisbiga way joogeen goobta waxaana ka mid ahay kuwa la saxiyay baarintaasi see noqonaysa taa kamid noqoshada xubintooda u cidban weydii laakiin go'aankii shalay labada xisbi wada qaateen waxay qaateen inaanay la shaqaynin qoladan idin walaasay وحبا ضاعك حسب قاله كوميشنك وحو شقيا احزابته هل حسبه ما شقيو marka haday laba xisbi ka maqan yihiin waxay la tahay diman maxamed kaahin iyo musabbixay qabanayaan doorashada komishinkii hore waxaad muddo 2 sano ku dhawaad ka leedahay كمان لا kii waqtigiisu dhamaaday sanadkii markii ku dhawaad ku leeyahay kii cusbaana haatan musaaqada dhacday talaabada mowqifkiisu marka geemadina qaadacaysa in koor tuwadaan weeyaan waa maxay talaabada saxda ah ee qaadaysa laakiin soo muuqata in doorasho ku bisantay maya waxa samaynta xaal har maal cad baa laga shaa saddex xisbi waxay ku heshiiyeen komishinkii hore la bedelo madaxweynuhu maanta saxayay waa ag joogteeno waa dib taagnayd horta heshiiska hadda madaxweynaha ka baxay Muuse ka baxay manuu waayin qof aan komishinkii hore ka mid ahayn xubin ka midana de xisbigiisa ka mid ahay oo anaga sanadkii hore komishinkii ka horreeyey Dr. Fadel baan lagu soo celiyay xisbiga ka mid yahay فضل لو ما يريني من غير كيمي لكن waxa loo lahaa wadani baad ka tirsan عبد الرشيد شخصيا لو ما haysto
waxaa loo haystaa lagu cad yahay oo intaasoo kelib a haysaan 100 kelib baa ku jira maanta social media marka go-aanka xisbiyadu waxa weeye in commission dhexdhexaada la helo markaas umana doorashada ka mid noqoto gudoomiye waad mahadsan tahay magacaygu waa Petri Kosaar waxaan ka socdaa telefishinka Sahan khaladaadka dawladdu gasho marka dad badan oo dawladaha aqoon leh ay ka hadlayaan waxay yiraahdaan khaladaadka badan ee dhacay waxaan jirin mucaarad adag oo arintaasi ka falceliya mucaaradadaadu inaanay adkayn ma isku aragta maya لكالتي معارض كموسى قال معارض نقضي ما كان ضرب له معارض ما قاعد يكره قدنا سنت magacay wax Daawud waxaan ka socdaa telefishinka Korea shirkaaga jiray hadda iyakii ku horeeyay maalin hore qabatay waxaan ku soo celinaysaa Muuse waxa ka maqan ereyga madaxweyne bulshadu waxay isweydiinaysaa gudoomiye Cabdiraxmaan miyaan u aqoonsan Muuse bixin uu yahay madaxweynaha Soomaaliland see wax kala jira Muuse de warigi bari yara aqoonsaday ya marka ma hada maqaasiga ma baahna malaynaa muddo dheer waxaad ahaan jirtay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliya xeerar badan oo shacabku si ay u arkayeen waa isku dhaafay tan u dambeysay waad ka maqanta waxaad gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadanka weli xubintaadi way ka maqanta waad la laaban hadalkaagana waxa ku jirta golaha wakiilada wuxuu noqday sayidadaasi ayay dadku isweydiinayaan wasiirada dadka lagu kala iibsadaa wasiirada xoolaha lagu kala iibsadaa dadka waa arkay sayidadaas إنك برنامج كسر سامين دون سيري ده سير gudoomiye magaca waa qadar ismaaciil ka saaray telefishinka badaas xubno ka mid ah golaha baarlamaanka waxay sheegeen in mooshinkeena xisbiyada gaar ahaan xisbiga wadan ما حد سؤال xubno ka mid ah golaha baarlamaanka waxay sheegeen in mooshinkeena xisbiyada gaar ahaan xisbiga ku sameeyaan dhowr jeer ee go'aamada xukuumadda ka soo horjeestay arrintaasi ka حلوة صاحبتها أنا مو هي هذا دكتور أيه gudoomiye magacay waa sagal waxaan ku weydiinayaa waxa jirta mudooyinka ugu dambeeyay saraakiisha xisbiga oo adigu aad ka mid tahay xogyaha guud ka mid yihiin waxay ku dhawaaqayeen inay samayn doonaan wax kasta oo ay ku toosinayaan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi way ku jirtaa xataa inay dibadbaxyo qabanaysaa haddiiba ay dibadbaxyadaas u dhacaan ama kacdoonnadaasi ay dhacaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa yaa qaadaya waxaa qaadaya ciddii caburinta keentay